halkani waa Hot Lagoon sidoo kale oo loo yaqaano harada binkiga ah. haddaba daawade ku soo dhawow fiidiyogeena kaga faalan doono haro ka mid ah harooyinka ugu quruxda badan adduunka ee loo dalxiis tago kuwaas oo ku yaala Australia. harada Hot Lagoon waa haro milix ah oo ku taala galbeedka Australia una dhow magaalada Port Macquarie. sida naanisteeda ka muuqata, haradu waxay leedahay midabka binkiga ah oo ay sababaan joogitaanka nooca algae la yiraahdo. midabka harada waxa uu kala duwanaan karaa casaan ciiro leh ilaa hooska qoto dheer ee magenta, taas oo ku xidhan xoojinta algae iyo xagasha iftiinka ee qoraxda ayaa sababaya iftiinka ama midabka binkiga ah. harada ayaa ah goob loo dalxiis tago oo caan ku ah quruxda dabiiciga ah ee cajiibka ah. soo booqdayaashu waxay ku wadi karaan baabuur muuqaal ah hareeraha harada, ama waxay tegi karaan safar la hagayo si ay wax badan uga bartaan nidaamka deegaanka gaarka ah ee aagga harada. ayaa sidoo kale loo isticmaalaa wax soo saarka milixda. dadka soo booqda waxay arki karaan guryaha milixda oo ay wax ka baran karaan habka milixda loo goosto. guud ahaan Hot Lagoon waa meel soo jiidasho leh oo qurux badan, taas oo u qalanta booqashada qof kasta oo u safraya galbeedka Australia. haddaba daawade, maxaad ka faa'iiday fiidiyogeenan aynu kaga hadlano harooyinka ugu quruxda badan ee adduunyada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.